magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool muddo 15 sano kadib bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa u diyaar garoobaysa munaasabadda Ciidul Fidriga iyadoo ay gacanta maamulka Soomaaliland ka maqan tahay magaalada Laascaanood hadaba bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood aan telefoon kala dhex qaadnay ayaan weydiinay farqiga u dhaxeeya munaasabadda Ciidul Fidriga ee u diyaar garoobayaan sanadkan iyo sanadkii hore walaalo magaca ku bilaabaya sanadkan iyo sanadkii hore farqiga u dhaxeeya munaasabadda Ciidul Fidriga walaal wad mahadsantahay magacaygu Cali Yuusuf Xaaji Ducaale aniga ku bilaabaya magacayga waxaan leeyahay sanadkan iyo sanadkii hore farqi weyn baa u dhaxeeya maadaama sanadkii hore uu ahaa sanadii maxaan ku raahday ay yare amni ahayd magaaladu sanadkan sidii maxaan ku raahday waxaan ku ciidanaa gabi ahaanba anagu booshka iyo tuutaha iyo maxaan ku raahday agabka dagaalka maadaama ay taadiye fara badan gobolkan ay ka dhaceen oo maxaan ku raahday suuq fara badan oo aan la soo koobi karin loo geystay bulshada maxaan ku raahday deegaanka waxaan ku jirnaa qof kasta oo reer Laascaanood ku jira waa difaac nafsi iyo difaac maxaan ku raahday wadan ayaan ku jirnaa kasaasi ku kala duwan yihiin waxaan ku ciidanaa oo qof walba u diyaar garoobaya inuu helo maxaan ku raahday agabkii maxaan ku raahday booshkii kabihi qadhaha tuutihi iyo maxaan ku raahdaa wixii aan saanado markaa ka dhiman maxaan ku raahdaa jeebkiis marka saasay kala duwan yihiin aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa ka ganacsata ahaan maadaama guddiga 33 iyo ismadu ay joojiyeen ganacsigii inooga imaan jiray gobolada waqooyi galbeed iyo burco ganacsigu xaguu idinka yimaada sidoo kale amni xagga xorriyadda sanadkan iyo sanadkii hore iyagana bal iyadana wallahi sanadkii hore waxaan la kulmi jirnay dhibaatooyin fara badan baan la kulmi jirnay ka mid tahay lacagayo fara badan oo la iska qaado maxaan ku raahdaa garanayn oo maxaan ku raahdaa sida cashuuro maxaan ku raahdaa wax la sheegto oo marba nin shaati noo soo xirto ay dhici jirtay in marka qaar naga qafisho albaabka maxaan ku raahdaa naga qafisho laakiin de sanadkan taas ma aanan arag xagga maxaan ku raahday ganacsiga la joojiyay maxaan ku raahdaa galbeedkana de waanu helay oo Muqdisho ku xidhanahay maxaan ku raahdaa Dubai aan ku xidhanahay oo maxaan ku raahdaa Boosaasan ku xidhanahay oo de waanu helay maxaan ku raahdaa wixii aanu u baahnayn sanadkan iyo sanadkii hore xukun dawladda anagu sanadka xaqii dadku dharka ka ciidi jiray tuuta lagu ciidayaa in kasta oo maanta iga dhamaaday biri imaanayo marka xilliga hore iyo xilligan way kala duwan tahay iyo wadankii nabad noo ah wadankii nabadgeliyada iyo Soomaaliland oo ka raysanay dogar cad naga martay hadarna inta yar noo hadhay gooja cad joogta intaana inta la iidayo ma nooga hadhay ciyaal dema jooga meeshan dadka waaweyn baa isugu hadhay waayeela dadkii waayeelka iyo ciyaalkii waa laga saaray oo de waxa la geeyay meelaha amniga caadiga ah day qof xoog loo qorigiisa wato oo wax qaadanayo wax iska celiyo baa joogi kara joogana oo tan wax taraya waxana ka dhicinaya bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku suganahay magaalada Laascaanood maanta waxaan ka soo baxnay furimaha dagaalka anagoo macnaha isdabal magaaladii aad eegteen oo ciid jooga ciidaya soo eegteen runtii ciidan iyo ciid hore adaadi weydiisay farqiga u dhaxeeya waxa u dhaxeeya farqi weyn aan la qiyaasi karayn ciidii hore waxay ahayd ciid magaalada cadow haystay meel kasta cadow ka fadhiyay dadku dareenkooda ma cabiri karayn dadku si farxad loo jawi loo ma ciidi karayn meelaha ganacsiga gidaash baa laga qaadi jiray iyaga laftooda maanta jawiga ciidu aad buu wanaagsan yahay qof kasta dareenkiisa isagoo xor oo macnaha rabitaankiisa shucuurtiisa cabirayo ku ciidayaa anagu haddaan iska qiyaasno ciidan ahaan anagu waxaan ku ciidanaa diriiska iyo tuutaha ciidamada iyo booshka inta uma magaalada hadda ugu qaalisan halkii awalta la iibsan jiray suulad iyo dhar caadi iyo hadda qof kasta wuxuu iibsanayaa boosh iyo qori ku ciidaya marka hadda waxaan u maleynayaa hadda jawi weyn baa u dhaxeeya waxaan la qiyaasi karin weeyo oo la heli karay cadowgii magaalada waa laga saaray inta yar hadhay buuraha ku hadhayna waa laga rogi doonaa waxa lagu tukan doonaa insha Allah maalmaha soo socda baa si wacan loogu cibaadeysan doonaa waxaan maqlayay doorkii oo calaacalayo dadkii wax naga iibsan jiray waa baabanayo hogna waa baqtinay waxaan idin leenahay wali ma dhawa marka sida dhabta u calaacal leeyahay wali lama gaarin maalin dhow calaacal baa tiri waad ooyi doontaan ilmaa idinka imaan doonta
waxaan u dirayaa fariin u dirayaa dhammaan dadweynaha reer SSC inay diyaar garoobaan oo heegan buuxa galaan qof kasta oo qoriqaada oo laascanood jooga oo inuu diyaar garoobaa oo inuu diyaar garoobaa sida cadawga inta hadhay la isu raacin lahaa ee loo ciribtiri lahaa cadawga ku sugan deegaamadeena SSC horeyteenu maaha laascanood kaliya inuu cadow ka saarno yoolkeenu waxa weeye dhammaan gobollada SSC oo dhan inaanu ka sifayno cadowga laascanood haddar waa ka saarnay si xorriyada oo nabada oo amniga loo dhexmaraya الرحمن الرحيم horta munaasabadii hore munaasabad isku mid maaha waxa weeye munaasabadan waxa weeye de wala garanaya wax reer laascanood loo sheegay ma jirto munaasabadii hore de waxa weeye wadanku nabad buu ah nabad baa lagu ciidayay nabad waxa weeye buu ahaa magaalada way camreed maanta magaalada ma jirto waxa maanta boqosh qori baa lagu ciidaya maanta wax kale ma jiro ma garan marka qof kasta waxa loo sheegaya jooga wadanka gobolada SSC waxa loo sheegay inuu halkan ka qayb qaato maanta waxa lagu jira in aslam waxa weeye cagta la mariyo inta hadhaadiga meesha ku soo hadhay ma rabna inaan cagta marinay maanta wax kale ma jiro dhammaan muslimiinta waan salaamayaa maadaama ciidii soo dhowdahay كل عام وانتم بخير وحان دمانتي أنا وآدن عبد الله كما قاعد يربي الداشة قبل كصول السؤال ويدين كتان باو ملايين يا محا niyo waxyaalo badan bay ku kala duwan yihiin markaan si guud u sheego magaalada horta dhar dumar lagama helaba waa tuute qori bumbo jiib suug wax aan waxa ahayn lagu ciidi maayo doorka intii horena way iska deganay tan waa taa marka dhinaca laga eego dhinaca wacan marka laga eegana tana annaga noo fiican oo tolkayo dhan baa noo yimid harti koon baan cidi ka maqnayn oo barwaaqada iyo lacagta iyo waxa hadba xeebaha laga keenayo malabka garaacad laga keenayo ka laga keenayo haddii ay qadarkeeda la gardafuul daboosaas laga keenayo annaga tana noo lacag badan noo fiican noo wanaagsan waxa weeye dadku wada lacag buu haystaa waxa weeye barwaaqa ilaahay garka loo galiyay roobkiina waa noo